qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Berbera iyo gudida dhismaha wadada isku xidhaysa magaalooyinka Berbera iyo Raribol ayaa xoolo dhan 250 neef oo ari ah kala wareegay bulshada iyo dadka ku dhaqan deegaanka Laasciidle iyadoo deeqdani ay hordhaco tahay 600 oo neef oo ari ah oo ay bulshada degmada Laasciidle ay kaga qayb qaadanayaan wadada isku xidhaysa Berbera iyo Raribol. xildhibaanada golaha deegaanka degmada Berbera ayaa si weyn ugu mahadnaqay bulshada deegaanka Laasciidle kuna amaanay sida weyn ee ay uga qayb qaateen wadadani, waxayna ugu baaqeen dhammaanba cid kasta oo ka qayb qaadanaysa wadadani inay ku soo dhaqsadaan qaadhaanada kala duwan ee ay kaga qayb qaadanayaan wadada isku xidhaysa Berbera iyo Raribol. sidoo kalena xildhibaanadu waxay qeyladhaan baan ka muujiyeen ayax farabaas ku haya beeraha iyo waliba dalaga xeebaha bari ee gobolka Saaxil. degmada Laasciidle maanta waxaan ka gudoomay oo injineer Faarax Xuseen iyo xildhibaanada madashan joogaan naga gudoomeen maamulka hadaan nahay Laasciidle iyo bulshada deegaanka labada tiro iyo koob iyo kontokaane baan ka gudoomay waxaan leeyahay gacmo furan naga gudooma qalbi furan naga gudooma mudanayaal waa naga gudooma amay wax ka qabadka wadada tan iyo baahiyaadkeeda run ahaantii waanu idinka gudoonay 250 neef hadda tiin degmada Laasciidle waxaan leeyahay sidii uu xildhibaanka hore ka dhawaajiyay xaalufka degdegaya ay ku habsaday jiida bariga Saaxil baan qeyladaan aad iyo aad mar labaad uga diraynaa. waxaan kale oo qeyladaan u diraynaa qurba-joogga reer Somaliland meelay joogaanba qurba-joogga Saaxil dawladda ayaan leenahay hawsha insha Allah taala wixii ilaahay ka karsiyo aad iyo aad baan idin diraysiinaa suxil saaray inay hadii baa laba ku rooyahay wixii lagu ballamay ay wax ka qabtaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqay. maanta aan ka gudoonay 250 neef. injineer Faarax oo ah injineerka isagu gacanta ku haya dhismaha wadada isku xidhaysa magaalooyinka Berbera iyo Raribol ayaa isna u mahad celiyay bulshada deegaanka Laasciidle sida ay soo xilqaameen ee ay u soo bixiyeen wajigii koobaad ee qaaraanka ay kaga qayb qaadanayaan wadada isku xidhaysa Berbera iyo Raribol. midaha wadooyinka Somaliland wadooyin badan baa laga wadaa aad iyo aadna dadka wada ugu mahadsan yihiin iyo cidii taageeraysaaba hase yeeshee wadadani waxay kaga duwan tahay wadooyinka Somaliland waxay kaga duwan tahay daldan oo xidhan oo albaab laga galaa aanu jirin ayay doonaysaa inay labadii taayir ee lagu mari lahaa u furto sida awgeed waxa weeyaan noloshii ummadani lahayd iyo horumarkii ummadan lahayd haduu caafimaad yahay iyo haduu iskuul yahay iyo haduu wax ummadeed oo kale ummadu u baahan tahayba waxay soo hortaagay wadada aan gaadiidku soo mari karaynin. Khalid Xasan Nuur, telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV, Berbera.